السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo muuqaal cusub walaashay ku sar siciid oo idin leh meel kasta adduunyada ka joogtaanba waqtigii waayo idin wanaado idamka ilaahay ku soo dhawow TV-geena umad kaliya. barigan caruurta aan maaragtay wixii ugu koobaad aan dhax u kala qaadnay oo ahaa TV-yada iyo maaragtay caalamka Hollywood iyo Bollywood. waxa ugu badan aniga riyooyinkayga ugu waaweyn waxyaabaha ku jira waxa ahaa inaan mararka kamid ah inaan soo booqdo meesha Disneyland. meeshaas yani dadka aan garanaynin waxay tahay waxa weeyaan meel lagu soo bandhigo shakhsiyaadka malawaalka ay maaragtay soomayso Disney, ama ha noqdo film kartoon ama ha noqdaan ashkhas kale oo maaragtay filmaanta matala ولكن malawaal Mickey Mouse طبعا برياس أنا كعروض بانهين، لكن إما كمركن وين هذه وحيابها عن حسوسته حكم إذا مرتين بشري وحيابه بدن وان دينتين يدق كين أخلاق ذلك أمضهان بدول بلدي كواه إني فافين. لكن حتى واحد استعبا ويسبل هذا الويديس نبابر لقول والليلي وارسلت محاد كوين مركزورين دلان مسألة تضعنا ويكون درسات. إمك ديزني وحي مركي هوري وحيابها أي كفريات كي فسقية وحي أي سميجر سيوردان وحي كون درساتي علاد وحي بكسيوي قوم لودنمو وحا براها بشاع كوفا في فيديو أما كليب أي كوشيغي سو قبل مدحوينها واحد ديزني لان أما ديزني وور muuqaal ay ku sheegayso in loo soo cawday ay u soo cawdeen qolada maaragtay LGBTQ ama qowmuluudku ay ku raahdeen ma badnin shakhsiyaadkan matala anagu hadaan nahay dadka leexsan shakhsiyaadkan matala meesha kuma badna maaragtay filmaantan aajishaan marka waxaan doonayaa inaad maaragtay nayra kordhisa dadka waxay tiri waxaan u qaadan waayay waxaan ma dhici kartaa waxaas dubban isku noqday waxaan ogaaday waxay sheegayaan runta waxaan go'aan ku gaaray maalinta laga bilaabo maadaama haysta laba caruura laba wiil oo maaragtay qowmuluud ah maadaama haysta laba wiil oo qowmuluud inkasta iyada qowmuluud lahayn macaanayso laba wiil oo qowmuluud aan haysto waxaan go'aan ku gaaray maalinta laga bilaabo boqolkiiba 50 shakhsiyaadka soo saarana inay noqdaan LGBTQ iyo wixii ka sii badanba dad matalaya yani film kartoonka iyo filmaanta caruurteenu daawan doonto boqolkiiba 50 kamid ah waxa ay caruurteenu ku daawan doonaan iyadoo la caadiyeynayo maaragtay camalkii qowmuluudka oo maaragtay hataa afcaashi iyo wixiiba lagu soo dhigayo gabadhaas waxay ballan ku qaaday inaan dib loo noqon doonin yani aan sidii hore caadi loo ahaanayn. And take a listen. This is Carrie Burke, who is the president of Disney. I'm here as a mother of two queer children, actually, one transgender child and one pansexual child. One of our execs stood up and said, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, it actually is true. And I hope this is a moment where, the 50% of the tears, sorry, are coming. We just don't allow each other to go backwards. Yeah. So Disney and she have apparently made clear that they are going to be putting as many, the acronym they use now is so long, TQIA, Two-Spirit, goes on and on and on, all these folks, in as many Disney movies as possible. They want these characters to become ubiquitous in the Disney movies. And I think that is totally unnecessary and out of line. I don't want you to work out your wokeism on my kid. Okay? Do a movie that teaches tolerance, kindness, support for your fellow human beings. Beware. You beware. Don't put a Disney movie on in front of your kid before you fully come to understand what it's going to be promoting, who it's going to be starring, and what agenda they're pushing. They're no longer the Disney of yesterday.
warkaas bulshada ummadda maaragtay adduunka ku dul nool aad iyo aad bay uga cadhoodeen ay ugu horeyso maaragtay dee ummadda dhulka ay ka dhisan tahay Disney oo ah America dadka ku nool yani dadka Amerikaanku laga yaabo meedyuhu inuu noo tusayna arrin caadi u arkaan laakiin aad iyo aad bay u neceb yihiin dadkaasi aad bay u diideen waxaan idhahay waxaas waxaan aqbali karayna maaha George Disney waxaad soo wadid waxaa soo wada George laakiin maya Disney waxaa ma iska dhaaf inay aqbalaan Disneyland inay maaragtay joojiyaan ama ay ummadda bulshadoodii ku xirnayd ee maaragtay taageeri jirteen taageerayaashooda ay maaragtay cabashadooda ay tixgeliyaan waxaabay markiiba soo saareen isla toddobaadkiiba filin qowmuluud ku jiro oo filin carreeda waxay soo saareen shakhsiyaadkii carruurnimadeenna ay wada jecleen ee baas oo maaragtay ay filinka ku weheliyaan shakhsiyaad qowmuluuda oo sameynaya camalkii qowmuluud dabcan way iska cad tahay waa weerar joogto ah waa halkii islaantii waa weerar joogto weheshada ilaahay waa weerar cad oo lagu soo qaaday maaragtay cuquusha carruurta iyo dhalinyaradaba si mar kaliya taala maaragtay loo dabagediyo hadal markii ay maaragtay laga soo horjeesaday ay diideen ay waliba ku sii adkeeyeen inay filimba soo saaraan sida ugu dhaqsaha badan la ah ay leeyihiin yani soo saarnay maxaydu sameyn waxay rabeen dawjada dabcan jeedkooda koowaad waxa weeyaan inay carruurtu iyaga oo yaryar ay cabsiyaan oo waxaan carruurtu marka lagu qofka bini'aadanka wuxuu ku soo canqaro dabcan oo wuxuu ku koraa uu ku waayeelooba uu ku dhintaa ilaahay oo ilaahaytiisuna waa mid gaar ah yumkiruuna wa yumkiru allah wallahu khayrul maakiriin laakiin iyagu saasay rabaan waxaa dhacay markaana sii wanaag waxaa jira 14 dal oo muslima oo mamnuucay filinkaas inuu dawladahooda soo galo 14 dawladood oo mamnuucay in dalkooda soo galo waxa aad iyo aad lagu kolley af Soomaalidu yani dawladaha Soomaalida masmuuga kuma jiraan 14 ka dal nooman camiiqan bay ku jirnaa inuu siyaasiyiinteeniba wali aan arrin soo dhac 14 ka dal waxay kaleeyihiin Sacuudiga Imaaraadka Bahrain Masar Lubnaan Kuwait Oman Qatar فلسطين سوريا العراق ماليزيا إندونيسيا إن شاء الله وحلا فيلي أنا دلالك فرق بدن إني صور راعي دونا sidoo kale sanadkan imika ay nagu soo wajahan 2023 dawladda Qatar ayaa maaragtay marti gelinaysa ciyaarihii adduunka go'aan bay soo saartay laakiin Qatar ay ku leedahay ciyaarahaas ama waqtiga ciyaaraha cidda calankii qowmuluudka kor u qaada waa la xidhaya inkastoo aniga ay la tahay yani inay arrin fog tahay inay samayso Qatar sidaas sababtoo ah dadkii aad isku yeedhisay maadaama waxaan dawladii aad marti gelinaysa dawladda la marti gelinaya maahano yani ha loo dhigo in adduunka oo dhan tahay ku bedan laakiin dad baa iskale reer galbeed baa iskale maadaama reer galbeed iyagu fikirkan wadaan oo iyagu maalgelinaya oo dawladahooda maalgelin manaahijta iskuuladooda ay ku jiraan inaad ku tiraahid maya walaal la soo gelmaysid way yara adag tahay haddana inay iclaamiyeen kaliya taa horta wax weyn ah insha Allah waan rajeynaynaa inay maaragtay u suurta gasho arrintaas inaka ka muslim ahaan horta markaa maxayna waajib maadaama in waxaan daawano anakoo de aniga iyo dadka la midkaayo kale ayaan ku soo kornayba maaragtay Disney World iyo maaragtay waxaas Hollywood iyo waxay soo deysay maxaa waalid hadaynu nahay maaragtay dadkii waaweynaaye carruurta yar loo socdo indhaha waxa maxayna waajib dabcan waxay nagu waajiba inaan carruurteena barno sidaan xalqadii hore baan sheegay waxaan la dhahaa tarbiya jinsiya maaha tarbiya jinsiya wax weyn oo kale lama baahna waxa weeyaan in barno carruurteena qisadii Nabi Luud alayhi salaam iyo ummadiisa kala qabsatay iyo waqtigan hawshin qowm Luud lagu rogay dadka wada iyo waxa ay leeyihiin soo ilmihii wacyi u lahaado waxaan maaragtay marka uu waxaan loo soo bandhigo maskaxdiisa iyadoo ay ku jirto maaragtay talaalkii hore u qabay ay maskaxdiisa u diidi karto laakiin ilmihii haddaan talaal qabin waa sidii qof bilaadan isoo talaalkii qabin meel cudurka joogo maaragtay lagu soo dhexday nabigu alayhi salaatu wassalaam isagoo dabcan waqtigan aan la joogin haddana waxyaabaha uu maaragtay sii sheegay waxa kamid ah inay xilligan iman doonto nabigu wuxuu alayhi salaatu wassalaam
ummadiisu haddii ay wax samayso inay maaragtay halaag samayso. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas ibn Malik baa nabiga ka warnay wuxuu yiri ilaahay ka raali ahaado qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, nabiga ilaahay wuxuu yiri rasuulka ilaahay wuxuu yiri idaa camilat ummatii 5 ummadayda haddii 5 arrimood samayso فعليهم الدمار وحوصلنا ذي بربر شن تعرف من حاجة لتهاي إذا ظهر فيهم التلاعن هذه أي كصيف بحظه إسنا عضلات أي مرتين عيد وشربوا الخمر أدي عبان أي خمر جنا عبان ولبسوا الحريرة أي رجل مرتين حدان وهاش حريرة الله يرهدو واتخذوا القينات أي سميستان دمر وجهاس وضمه واكتفى الرجال بالرجال ركو كافتوم والنساء بالنساء دمر كافتوم shanta arrimood ummadda hadday samayso inay maaragtay burburayso ayuu nabigu calayhi salaatu wassalaam inooga warramay. reer galbeedna shanta arrimood iyo qaar kale ku darseenba way sameeyeen. kolley gacmahooda inay isku burburinayaan ayay u eegta xadaarad ama maxaa la yidhahdaa wixii ay dhiseen cilmigii ay dhiseen iyo xadaaradii ay dhiseen haddana iyagu gacmahooda ay ku dunduminayaan sidii yuhuudii reer Khaybar oo kale. marka inaka muslim ahaan waxayna la gudboon inaynu wacyigelin isku samayno aynu maaragtay dagaalka abuurka bini'aadanka laga soo horjeedo inaynu maaragtay ka dhan noqono inaynu diinta islaamka dadka u cadeyno inaynu dadka maaragtay farno waxaan ay maaragtay gacmahooda ay ku sameeyeen dhibaatada ay leedahay iyo halkay gaarsiin karto. horta ka muslim ahaan inaynu ku wacyigeelano arrintan inay riska caadi ahayn arrintan ay tahay arrin ummad inaga horeysay lagu halaagayba يعني أدون كان كجبابة أدون كمان كجبحضي قف كستو حتى عن سوق وحاسمين لكن وأرك ريسك عادي حرية شخصية وأرك وجوها أوجاد إني قبل النبي لود عليه السلام وحي كل عاقل أو كل عين قبل النبي لود عليه السلام يدو حميس من كرن بس وحي قبتي إني أرنتني معرتي أرني جو قارت هاي نبي لود نعتها نعم أفعلها سوكلي يدي هو الرأي يعني dadkii la halaagaba la halaag حتى umu shafiica qaadin nabi bay xaasuutay toona iyo macruur nabi bay dhash marka hada waayo waxa jira dad muslima xilligan ay joogno oo dadka qoomuluudka u yeelinayo ku oranaya qofku dib kuma yeelin isaga hatta hadii dib tahay soo kaliya ku eeg tahay qofkan waa xorriyad jacaylku waa xorriyad حتى جعلك بقى لما رحتي دبراني محاد يقول لي دينو أنا ما أشوف بتشري صوتها دل تقلوا قفتيس على هذا ميس كوري يعني يعني لا بقى فوكستيس على ميس كوري جعلك وارن حرير كان ما رحتي شر كان وارن قار ما أنت حلقتي أنت إن شاء الله إنه سيكتهاي أنت المركلة كل منهم مقال كله والله كان سبسكرايب هلا ده وأنا لشير كريو بليز ما خصب يعني لكن هو سو تشيدين لايك تا يو كومنتي نوعي مهم إلى الفكر كاجيدي بتي ما مرتي حاجة وصيو ريبتي إذا كلاهي أنت المركلة كل منه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.